Hi guys, waa anigo Cabdiraxmaan channelkuna Fun Cook. Waxaa maanta inoo wadaa shish meat red sauce. Kaani asa sameyno. Waxaan sameysan doonaa shish meat keena sidoo kale bariiska lagu cuni lahaa iyo shidnigiisa. Marka hore waxaan soo diyaarsaneynaa hilib shiidan iyo sidoo kale makoonaadkii aan u baahnay inaan ku sameysano basal iyo sidoo kale shiishiid. Waxaan halkan noogu diyaarsan saxanka aan ku sameysan shish meat keena. Waxaan saxanka kor saartay waraq zubda. Waxaan soo diyaarsanaa marka hilibka shiidnay. Hilib shiidnaa waxaa usoo kuskusanaa qaab oo xoogaa oo balbalaar dhir يعني shish meat-ka waxaa rabaa hadhow inuu dhadhan yani i yeesho kale aragti qurxan oo ii noqdo qaab qurxan. Waa soo diyaarsaday waxaan gashanaa marka furunka. Waxaan sugaa ilaa inta oo nooga soo diyaarsamayo. Waxaan sii sameysanaa marka hadda bariis. Waxaa rabaa cunto walba karinaya xoogaa dhadhan inay lahaato fiican yahay bariis aa leed. Waxaan ku darsaday hadda waraq duqaar, filfil iyo sidoo kale qorfe. Dhammaan waxaan sugaynaa marka ilaa inta oo bariiska ilaa inta biyaha ay nooga soo kululaanayaan si hadhow marka ugu shubano bariiskeena. Waxaa inta noogu sii diyaarsamayo shidni. Shidnigan sameyntiisa waqti dheer ay qaadanee xoogaa video igu dheeraanayo. Haddii aad u baahantihiin inaan video gaar ah kasoo sameeyo dhanka hoose comment-ga nagu soo wadaag. Waxaa sii sameysanaynaa markaas red sauce-keena ama suugadeena guduudneed. Waxaan dabka sii saaraynaa basal iyo tuun. Markii basasha iyo tuunta xoogaa noo kululaadaan kadib waxaan ku darsanaynaa markaas shiishiid iyo shiishiid marka ku darsan waxaan ku darsanaynaa xawaaji iyo sidoo kale cusbo. Waa isku walaaqeynaa waa ilaa iyo inta oo markaas nooga soo kululaanayso suugadeena ama red sauce-keena. Halkan biyihi ayaa noo soo kululaaday. Waxaan ku shubaynaa markaas bariis aan soo dhaqanay. Markaan bariis ku shubana kadib waxaan ku darsanaynaa xawaaji. Kadib waxaan sugaynaa markaas ilaa iyo inta oo bariiska nooga soo bislaanayo. Waxaa halkan nooga soo diyaarsamay oo furunka nooga soo baxay shish meat-keeni. Markaas waxaan ku darsanaynaa suugadii noo diyaarsaneyd ama red sauce-ki. Waa ku gedgedihaynaa marka dabka ayaa u gaabihaynaa. Waxaan rabnaa inay isdhex galaan shish meat-ki iyo markaas suugadii. Dab yaroo gaaban aan u baahannahay. Waxaan ka sugaynaa markaas ilaa iyo inta oo is soo dhex galaayo. Halkan waxaa nooga soo diyaarsamay bariiskeeni. Marka waxaan rabaa bariiska inuu noqdo mid oo laba kalar leh ama mid oo yani aad u qurxan. Waxaan ku darsanaa marka food coloring. Wax yar aan ku darsanaa intaas yar ayaa ku filan. Intaas ayaa is wada gaargaarayso ku walaaqa. Waxay noqonaya markaas bariis oo laba kalar leh oo aad u qurxan. Waa kana shish meat-ki iyo suugadeeni ama red sauce-ki oo is dhex galeen. Masha Allah aad ayay u qurxan yihiin. Waa kana masha Allah sidan qurux badan ay noogu soo baxday shish meat red sauce iyo bariis iyo sidoo kale shidni. I wish inaad jeclaan doontid aan ka heli doontid. Haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar si aad u mid noqoto asxaabta Fun Cook. Video like saar, share garee si ay u bataan asxaabta Fun Cook.